ciidamada militariga ee Mali ayaa sheegay inay ka hortageen weerar ballaaran oo ay si wadajir ah u soo qaadeen dagaalyahano ka tirsan kooxaha gooni u goosadka Tuareg iyo kooxo Islaamiyiin ah sida ay sheegeen mas'uuliyiinta militariga. weerarada ayaa lagu beegsaday 5 magaalo iyo xabsi ku yaala koonfurta iyo bariga dalka, iyadoo ciidamada ammaanku ay sheegeen inay ku guuleysteen inay iska caabiyaan weeraradaas. weli si madax bannaan looma xaqiijin khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalka. dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa xilli Mali ay wajahayso xaalad amni oo sii cakirmaysa. qiyaastii 2 bilood ka hor ay kooxo hubeysan qaadeen weeraro culus oo ay ku ballaariyeen saameyntooda waqooyiga dalka, taas oo muujisay awoodda ay ku leeyihiin deegaano badan. tan iyo markii militariga Afgembi ku qabsaday talada dalka, Mali waxa ay si weyn u bedeshay siyaasadeeda dibadda. dowladda ayaa xiriirka u jartay Faransiiska, iyadoo ciidamada Faransiiska laga saaray dalka, halka ay xoojisay iskaashiga ay la leedahay Ruushka oo ay ku jiraan ciidamada iyo la taliyayaasha amniga ee Ruushka. si kastaba ha ahaatee, falaqeeyaal badan ayaa sheegay in inkastoo ay isbedeladaasi dhaceen, haddana dowladda Mali iyo xulafadeeda ayaa weli la daala dhacaya kooxo hubeysan ee ka dagaalama waqooyiga iyo bartamaha dalka. dagaallo soo noqnoqda ayaa sababay in deegaano badan ay ka baxaan gacanta dowladda. mararka qaar kooxo hubeysan ayaa weeraro ka fuliya ama ka sameeya dhaqdhaqaaqyo ku dhow heerarka caasimadda Bamako, taas oo muujisay in caqabadaha amni ee dalka ay weli yihiin kuwa culus.